warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha gobolka Togdheer ayaa xukuumadda Soomaaliland ka dalbatay in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo kamid ah warbaahinta ka howlgasha gobolka Togdheer waana kuwan iyagoo arintaasi ka hadlaya wariyaasha kala duwan ee gobolka Togdheer ka howlgala waxaan halkan isugu nimid maanta hadaan nahay bahda warbaahinta gobolka Togdheer inaan ku muujino sida aan uga xunnahay xariga Cabdimaalig Muuse Coldoon isla mar ahaantaana aan xukuumadda Soomaaliland ka codsanayno inay sii dayso xorriyadiisa soo celiso haddii Cabdimaalig loo haysto oo qaranku dhibana u yahay waxa leena qaranku hanoo cafiyo Cabdimaalig waxaan ku yaqiinsanahay oo aan ku ogahay anagu muddo dheerna saaxiib baan ahayn hawlo badan oo sanfalan oo aan ka wada shaqeynay waxaan ogahay nashiidada luqadda carabiga uu ku sameeyay ee Dean May sanadkii 2014 iyo 2015 uu soo saaray ee uu qaranka Soomaaliland ku fahamsiinayo dunida inta fahmaysa luqadda af carabiga kaalintaas laftarkeedu waa kaalin kale oo loo baahnaa ma jiraan xataa aan wariye ama qof hal abuur ah oo suugaan luqad kale intu ku sameeyay ku fahamsiyo dunida afka Soomaaliga waxaan ahayn ku hadasha qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland taas laftarkeedana waan ku bogaadinaynaa samafalkan uu geysto ee uu ka shaqeeyo ayaan ku bogaadinaynaa waxa soo dhan waxaan leenahay xukuumadda iyo qaranka Soomaaliland inaad eegtaan oo aad ugu dhaaftaan halkan maanta kama wada hadlayaan oo kaliya ama codkan hadda ku baxaya maaha codkii saxaafadda oo kaliya balse waxa codka ku baxaya uu yahay codkii dhammaan dhibanayaasha Soomaaliland oo dhan codkii hooyooyinkii dayactirnaay oo dhan codkii maxaysatada gobolka Togdheer iyo maxaysatada Soomaaliland oo dhan ee Cabdimaalig Muuse Coldoon soo qacan qabtay dhamaantoodba madaxweyne waxay ku leeyihiin Cabdimaalig Muuse Coldoon nooca fi haduq oo noo saamax suxufiyiinta gobolka Togdheer haday hore isugu yimaad jiraan cambaareen baata waxaan isugu nimid codsi xariga Cabdimaalig Muuse Coldoon aan ku codsano xukuumadda Soomaaliland inay cafis u fidiso maadaama Cabdimaalig ahaa samafale qaran oo guud ahaan qaranka Soomaaliland iyo dadka tabaalaysan u shaqeyn jiray waxaan mar kale mar labaad guud ahaanba xukuumadda cid kastoo xarigiisa awoodda inay cafiska ka shaqeyso in arinta ay u fududayaan saxaafadda codkoodii anagoo ku hadlayna horaa looga soo sheekeeyay wuxuu dayartaa kuleeyay wuxuu gad ka soo saaray anigu waxaan taakiidinayaa on xukuumadda si sharaf leh maamuus leh oo qadarina qaranka kan Soomaaliland aan ku noolahay aan ku soo caanamaalay ka codsanaya in loo cafiyo oo loo sii daayo waxaan halkan isugu nimid anagoo ku hadlaynaa afka saxafiyiinta gobolka Togdheer afka dadka jilicsan afka dadka u baahan kaalmada iyo gurmadka in si xushmad leh xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay u soo deyso saxafi samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon anagoo saxafiyiinta gobolka Togdheer waxaan halkan isugu nimid inaan xukuumadda Soomaaliland cod soo dirno codsigaas oo ku aadan saxafi samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ku xidhan Hargeysa inay soo deyso dawladdu wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa ahaa gudoomiyaha ololaha kuwan kaalme oo ah olole khayriya oo inta badan istusa kana shaqeeya dadka ladan iyo kuwa liita Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekhadan Cabdisakronto muqbaahiya caalamiga saab gudaha magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer